waxaana wanaagsan idil ahaantiin baddaawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan halkani waa bandhiga TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo amar adag siiyay saraakiisha ciidamada dalka kadib weeraro maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ka yiri madaxweyne Farmaajo weerarkii lagu qaarijin rabay taliyaha ciidanka booliiska sidoo kalena ay ku dhaawacmeen murashaxiin u tartamaya xilka Villa Soomaaliya gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo si toos ah ula saftay madaxweyne Farmaajo si weyn uga hor yimid qorshaha ra'iisul wasaare Roble xilli uu waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashadii ceel waaq oo maanta la soo afjaray ayaan idin soo gudbin doonaa wararkan kalena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay hadal jeedintii murashaxiinta guddoonka labada aqal oo maanta lagu ogaaday halka ay gaarsiisan tahay rajada Villa Soomaaliya ee ku guuleysiga kuraasta guddoonka labadiisa gole yaa ugu cadcad haddaba gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa halkee ayayse gaarsiisan tahay rajada gudoomiye Cabdi Xaashi iyo maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo uu ka dhex qarxay dagaal siyaasadeed oo salka ku haya xilka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare Ali Guudlaw iyo Qoorqoor oo kulamo culus la leh sanatarada ku matala baarlamaanka Soomaaliya qodobadaas ayaad ku daawan doontaan barnaamijkan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee aad kala socotaan bandhiga TV haddii aad ku cusub tahay shabakadan bandhiga TV subscribe saaro oo sii share garay muuqaalada iyo wararkan halkan soo galin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saaxiibayaal aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu amar adag siiyay saraakiisha ciidamada dalka kadib weeraro maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho weeraradii madaxweyne Farmaajo aad kaga xumaaday waxaa ka mid ahaa weerarkii markaasi xalayto ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho kaasi oo markaa lagu bartilmaameedsaday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya isla markaana si dirqi ah uu weerarkaas kaga badbaaday weerarka ayaa waxa uu ahaa mid ismiidaamin isla markaana qof naftiis hore ah uu isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaasi uu la beegsaday maqaayad uu shir kaga socday mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka koobnaa wasiirro xildhibaano iyo saraakiil ciidan madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in arintan ay tahay wax aan la aqbali karin isla markaana loo baahan yahay in ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ay muujiyaan feejignaan dheeri ah isla markaana hadda wixii ka dambeeya loo diyaar garoobo sidii looga hortagi lahaa in markaasi weeraro kale ay ka dhacaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xalayto weerarkii dhacay ayaa waxa uu ahaa mid markaasi uu ka badbaaday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Xijaar sidoo kale waxaa ku dhaawacmay oo markaasi waxyeello xooggan ay ka soo gaartay mid ka mid ah murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxaana lagu magacaabaa ninkaasi Dr. Cusmaan Fiqi madaxweyne Farmaajo waxa uu ka tacsiyeeyay dadkii shacabka ah ee ku dhintay weerarka xeebta Liido halka kuwii ku dhaawacmay uu rajeeyay inuu alla bogsiyo waxa uu laamaha ammaanka ku celiyay mar kale in ay feejignaan dheeri ah muujiyaan waxa uu tilmaamay in lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan ee qaybihii ugu dambeeyay sidoo kale doorasho wadanka ay ka dhacayso haddii ay noqon lahayd midda guddoonka golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare iyo midda madaxweynaha ayaa muwaadiniinta ku geeriyooday qaraxaasi alla uga bariyay in uu hoygooda ka yeelo Jannatul Firdawsa maalmihii la soo dhaafay ayaa qaraxyadu waxay ahaayeen kuwo markaasi isu soo tarayay iyadoo ammaankana uu ahaa mid aad looga deerinayay xitaa amnigu waxa uu gaaray heer markaasi ay kala shakiyaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan markaana aynu eegno madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn kaga hor yimid doorashadii ka dhacday ee magaalada Ceel Waaq ee gobolka Gedo waxa uu sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid sharci darro ah balse madaxweyne Farmaajo midna ma haysanin taageerada gudiyada doorashada marka laga reebo gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo markii uu madaxweynuhu arintaasi ka hadlay kadib taageero isla markaana la saftay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ayaa sharci darro ku tilmaamay doorashada ka socota degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo taas oo maanta la soo gabagabeeyay iyo tan markaasi la filayo in biri ay ka dhacdo magaalada Garbahare ee gobolka Gedo Maxamed Cawil oo si shakhsi ah go'aankan u soo saaray xilli ay xubno ka mid ah guddigiisa ku sugan yihiin Garbahare ayaa sheegay in labada doorasho ay baalmarsan yihiin hanaanka doorashada iyo heshiisyadii doorashada balse waxaa la fahamsan yahay in gudoomiyahan ay ka hadal siisay Villa Soomaaliya gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ayaa ku mowqif noqday madaxweyne Farmaajo waxaana madaxweynuhu uu soo saaray dikreeto ku sheegayo in ay sharci darro tahay doorashooyinka ka socda gobolka Gedo waana markii labaad ee uu qaato gudoomiyahan mowqif iskiis ah oo uu go'aan uga gaarayo arrin ku saabsan doorashada dalka
maxamed cawil gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashada waxa uu hore iskiis u soo saaray qoraal uu ku sheegay in kursiga hob 86 aanu wax dacwad ah laga keenin oo markaa lagu socon karo doorashadiisa, waxaana go'aanadiisa ay ka soo horjeedaan habka shaqada guddiga oo go'aamada ku gaara cod haldheeri ah kana jawaaba dacwadaha markaasi loo gudbiyo. Guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu soo jeedinayaa madasha wadatashiga qaranna uu ka dalbanayaa in ay xal waara u hesho doorashooyinka isbarbar yaacsan ee haatan ka socda magaalooyinka Garbahare iyo Ceelwaaq, taasoo u baahan wadahadal, isqancin iyo tanaasul siyaasadeed, ayuu qoraalkiisa ku yiri gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo sidoo kale muuqaal iska soo duubay. Guddiga FID ee heer federaal iyo guddiga SID ee Jubbaland ayaa iyagu soo gabagabeeyay maanta doorashada Ceelwaaq, waxaana la filayaa in shahaadooyinkooda ay qaataan, sidoo kalena ay markaa ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Fadhiyada ugu soo horeeya ayaana la filayaa in markaasi la dhaariyo xubnahan, isla markaana ay ka qayb galaan doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, taasi oo la filayo in ay dhacdo 27 bishan aynu ku guda jirno Abriil 2022. waxaana jirtay in maanta xubno ka mid ah xubnaha lagu soo doortay Ceelwaaq loo diiday inay tagaan baarlamaanka, isla markaana madaxweyne Farmaajo awood ciidan u adeegsaday wadooyinka soo gala xarunta baarlamaanka ee Villa Hargeysana uu markaasi soo dhoobay baabuurta dagaalka, gaar ahaan kuwa markaasi waaweyn ee beebaha loo yaqaano. Lama oga sida loo socodsiin doono xubnahan, isla markaana loo dhaarin doono ka hor doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. qaybaha dhexe ayaad la socotaan. Maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka dhacday hadal jeedinta murashaxiinta guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, taasi oo ka qabsoomtay labada gole ee baarlamaanka. Kulanka golaha shacabka oo furmay maanta ayaa waxaa markaa lagu bilaabay ugu horreyntii dhaarinta xildhibaano cusub oo dhowaan lagu soo doortay dalka, kuwaas oo kale ah Jaamac Taqal Cabaas oo lagu soo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Axmed Maxamuud Beere oo lagu soo doortay Hirshabelle, Xasan Budul Cali oo lagu soo doortay Jubbaland, Cismaan Maxamed Maxamuud Xaadoole oo lagu soo doortay Hirshabelle. intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa guda galay dhageysiga khudbadaha murashaxiinta oo ka hadlaya barnaamijkooda waxqabadka iyo taariikh nololeedkooda. xubnaha gudoomiyaha markaasi isku soo sharaxay ee hadalka maanta jeediyay ayaa gaarayay ilaa 8 xubnood, waxa ayna kala yihiin Cabdirashiid Xidig, Cabdulaahi Balaag, Aadan Saransoor, Xasan Cabdinuur, Maxamed Mursal, Sadiiq Cabdulaahi, Shariif Cabdalla iyo sidoo kale Aadan Madoobe, waxayna dhammaantood sheegeen in wax fiican baarlamaanka ay u qaban doonaan. geesta kale xarunta golaha aqalka sare waxaa iyaduna ka dhacday hadal jeedinta murashaxiinta gudoomiyaha golahaas, waxaana murashaxiintu ay kala ahaayeen saddex murashax oo keliya: Senator Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo horay baarlamaankan aqalkiisa sare u hogaaminayay, iyo xubnaha kale ee hadda doonaya inay jagadaasi qabtaan ee kale ah Senator Saalax Axmed Jaamac oo wasiirka xukuumadda hadda jirta, iyo Senator Cismaan Abuukar Dube oo sidoo kale isaguna wasiir ah. murashaxiintan ayaana iyaguna soo bandhigay sida ay markaa u arkaan in ay ku hogaamin karaan baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan aqalkiisa sare. ugu dambeyntiina waxaa loolan adag uu ka dhex qarxay maamulada Hirshabelle iyo sidoo kale Galmudug, waxay isku hayaan doorashada guddoonka aqalka sare, gaar ahaan ku-xigeenka koobaad. warar aynu helnay ayaa sheegaya in natiijo la'aan uu ku soo dhammaaday kulan ay markaa magaalada Muqdisho ku yeesheen senataro ka tirsan aqalka sare oo markaasi ka soo kala jeeday Hirshabelle iyo Galmudug. wararka sidaan ku helnay kulankaas ujeedadiisu waxay ahayd in senatarada Galmudug ay ka codsadaan kuwa Hirshabelle in senator Cabdixakiin Macalin looga tanaasulo kursiga gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare oo lagu tartamo oo markaa uu kula tartamayaan raahday murashax ka soo jeeday Hirshabelle oo Cali Shacbaan la yiraahdo. kursiga gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa isku haya senator Cali Shacbaan oo laga soo doortay Hirshabelle iyo senator Cabdixakiin oo isaguna ka soo baxay Galmudug. madaxweynayaasha labada maamul goboleed ayaa la soo warinaya inay kala taageersan yihiin labada murashax, iyada oo mid waliba uu dadaal badan ku bixinayo sidii uu kursigaasi ku heli lahaa qof ka soo jeeda deegaankiisa. xogta aynu helnay ayaa intaas ku daraysa in senataradii ka socday Hirshabelle ay diideen inay ka tanaasulaan kursigaas, isla markaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin in la tartamo oo qofkii ku guuleysta la arko. dooda ugu weyn ee ay qabaan xubnaha Hirshabelle ayaa ah in kursigan oo ay wadaagaan
beelo ka soo jeeda labada maamul aysan hadda sax ahayn in mar kale uu dhankeeda jirsado Galmudug maadaama 5 sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay Afshir Buqaari oo ka soo jeeda Galmudug waxaana loolankan uu noqon doonaa mid markaasi sii socda inta doorashada guddoonka aqalka sare ay ka dhacayso qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo